magaalada Gothenburg waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay wasiirka dowladda madaxtooyada iyo waliba xiriirka gobolada dowlad goboleedka Puntland Soomaaliya Dr. Bashir Gurxan wasiirka ayaa muddadii ugu dambeysay waxa uu kulamo la qaadanayay qurbo joogta reer Puntland Soomaaliya ee ku kala dhaqan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika wasiirka waxa habeenimada xalay ahayd loogu sameeyay magaalada Gothenburg xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Gothenburg iyo waliba mas'uuliyiin ka kala yimid wadamada Scandinavian-ka waxaan ku soo dhaweynaynaa madashan soo qabanqaabisay jaaliyadda Puntland Development Organization runtii anigu meeshaan waxaan u soo istaagay kaliya inaan idin furo runtii waxayna noqon doontaa barnaamij ku salaysan in uu mudanaha wasiiru dowlaha warbixin naga siin doono wadankii halkaan aad u wada fadhidaan inaad ka dhagaysataan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waan islaamaya dadkiina meesha ka soo qayb galay aad waxaan u soo dhaweynaynaa muxuu ahaa Bashiir Cabdiraxmaan Gurxan oo ah wasiirka federaalka ee Puntland annagu waxaan nahay reer Göteborg waa meel lagu yaqaan inay soo dhaweyso dadka ka yimaada Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Puntland Bashiir adeer waa magaalo badan marti ku ahayn magaalo aad kugu soo dhaweynayna weeye waa magaalada aad rabtiin inaad timaado intaad wasiirka noqotaan adiga tiri waa imanaynaa waana ka soo qayb gali doonaa dadka inaan la kulmo ku soo dhawow waxaa ku soo dhaweynaya jaaliyadan Soomaaliyeed ee Puntland sida qaabiyaasha iyo dhammaantiin ka soo qayb gashaba dhammaantiin waxaan ku salaamay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام بعد أنا واحد كم بدها هاي مرتي تبيد أو اللي كتبين ذلك النرويج ما دام وسير كيس وتقدر يحاول سنوي ما كريم وحنا دورنا هنا المريض معنا هذا يبدو في المسيح حنا شاريده ورنتي نوع سوينا هذا كان يكون معنا صادرات دوحان إنه كنا معنا إلى اللقب سنة لكم كيسلوين توسيك halkaan aad iyo aad waxaan u faraxsanahay inaan idin imaado wasiirkan wax ka soo miyaynan awoodin inaan wadooyinka wax ka dhisno biyaha wax ka qabano caafimaadka wax ka qabano maxaan ku raadaayo muuqaalka dalku ma awoodna waa awoodna laakiin diyaar ma nihin laakiin waxaan rajaynayaa marka anaan wasiir ka dhabqinayn warjaaliyaday inagoo isku dhan aynu u soo jeesano si aynu dalka uga bedelaynayn waxa uga qaban lahayn waxa qaban karnaa laakiin qulubteenu ma aaminsan wax qaban karno aynu dib u fakarno dibna isugu noqono afartaas sano ee soo socota dawladda hadda hal sano tagtay afartaas sano ee soo socota u hadhay dawladdan inaynu wax la qabano lana shaqeyno tan soo socotana insha Allah qofkii nool ula shaqeeyo oo dalka muuqaalkiisa wax ka bedelno wax badan aynu wax iska niraano wasiir marka waxaanu si gaar ah kugu amaanaynaa adiga iyo madaxdaada kaleba ilaa madaxweyne anoo isleh tala badan iyo tabaro badan baad ku lahayd in saaxo ay degmo noqoto arrintaas aad hirgeliseen waxaanu aad u jecelnahay mar haddii degmadii la dhisay waxa ay u baahnayd imkaanaadkan in la helo oo amni la helo xoog leh oo dhaqaale iyo horumar la helo baanu aad u jecelnahay dawladda wasiirada dhammaan intay ka tagtay qurbaha iyo kuwa agaasimayaasha jooga nin waliba shaqadiisii wuxuu uga soo tagay in uu wadanka wax u qabto waxay dawladdu ku khasbantay inay mushahar siiso mushaharka markay siisana si uu u noolaado reerkiisa uu kaafiyo annaga waqtigan markaan shaqeynayno waa qabana laakiin yaa laga rabaa inay maalgashiga ka qayb qaataan waxbarashada caafimaadka iyo nolosha ka qayb qaataan annaga waaye mar kasta oo aan gurigayga soo galo oo korontada aan daminayo meel ba ay xanuunto waxaan xasuustaa gabadh ila mid ah oo anoo kala ah inay ku nooshay meel baadiyo aan koronto lahayn dhalasho aan wadaagno ugu dambeyntiina warbixin dhammaystiran waxaa laga dhageystay wasiirka oo isagu ku dheeraaday halka ay marayso geedi socodka horumarka laga wado dowlad goboleedka Puntland Soomaaliya waxay wuu ku dadaalaya gabdhaha kootadoodii waa badinay
waxaanu ka degnay laamigii oo madaxweynuhu telefishinada ka aragteen ma fadhiisto xataa lama gaaro markuu dhaqaaqayo waa ku jidboonaya dadka say u sircisan yihiin iyo biyo la'aanta iyo waad aragteen isagoo ka goostay wasiiradii oo gaari waayey waxaasoo dhan waa hilo lagu qabo dadka xogtooda iyo baahidooda dowladda iyaduna laamigii waa ka degtay meel kastoo dadku jirana waanu ugu tagnay waxaan kaloo waxaynay baahinta xukunka degmo gobol tuulo meel beel yara degan tahay 30 qof meel ay ku nooshahay meel walba maamulkooda waa inay doortaan iyo madaxdooda ayagaa dooranaya ayagaa hay-aduhu ugu imaanayaan ayagaa gorfaysanaya wixii loo qabanayo ayagaa waxooda maamulaya wasaaradaha qaybaheediina waa u imaanayaan laakiinse maamulkooda lookalka ah ayagaa iska leh waxaad ka garanaysaa Puntland inay tagtay saaxo 3 bilood jirta maartay 2 wiil 3 wiil koor ay maamulkeedii dhameystirtay Ibrahim Mahmoud Jama Kalsan TV Gothenburg